kulantuucan u wanaagsan saaxiibayaal magacaygu Cabdirasaaq Daahir oo la socodsiinaya barnaamijka ciyaaraha aalaba xilligan oo kale barnaamijka ciyaaraha waxaan caaw ku eegi doonaa labada kooxood ee awood badan ee kooxda Real Madrid iyo kooxda Barcelona ayaa martigelin doonta kooxda Real Madrid taas oo la wada ciyaarayo Copa del Rey haddaba labadan kooxood 239 kulan ay wada ciyaareen 95 kamid ah kooxda Real Madrid bay guusha ku raacday 94 kamid ah kooxda Barcelona konton kamid ah barbardhac bay ku dhamaatay Champions League horyaalka qaaradda Yurub marka la eego 8 kamid ah wada ciyaareen 3 kamid ah kooxda Real Madrid bay guusha raacday 2 kamid ah kooxda Barcelona 3 kamid ah barbardhac bay ku dhamaatay caawa koobka wada ciyaaraya waa Copa del Rey 34 kulan bay wada ciyaareen 12 kulan oo kamidna kooxda Real Madrid baa guuleysatay 15 kamidna kooxda Barcelona 7 kamid ah barbardhac bay ku dhamaatay waa la liiga horyaalka Isbaanishka 178 kulan bay wada ciyaareen 12 kulan kooxda Real Madrid baa badisay oo guusha ku hoyatay 17 kamidna kooxda Barcelona 35 kamidna barbardhac bay ku dhamaatay ciyaaraha kale saaxiibtinimo marka la eego 20 kulan ay wada ciyaareen 8 kamid ah kooxda Real Madrid baa guusha ku raacday 6 kamid ah Barcelona 6 kamid ah barbardhac bay ku dhamaatay kooxahani koobka ugu waaweyn ee aadka loo hadal haynta badan intii kala sitaan been iyadana eegi doona liiga kooxda Real Madrid 33 koob ay sidataa Barcelona 25 koob bay sidataa Copa del Rey waa koobka caawa la wada ciyaarayo kooxda Real Madrid 19 koob bay sidataa kooxda Barcelona koob iyo 30 kulan bay sidataa Champions League waa koobka dhigaha waaweyn waa koobkii 12 kooxood ay ku tartamayeen kooxda Real Madrid 13 koob bay sidataa waa kooxda ugu badan qaaradda Yurub Real Madrid Barcelona 5 kamid ah ay sidataa labadan kooxood goolasha ay kala dhaliyeen marka la isku soo wadageeyay waa 793 gool kooxda Real Madrid 402 gool ay ka dhalisay kooxda Barcelona waxay ka dhalisay kooxda Real Madrid 319 gool 12 gool baa la isdheeriyaa